دوربته لها هروين كما تقعد شاني تور كما دكتين عني تيعا إيالاني تلالا أينا غير أفقاب تلوك الصوداف ضربت وبسوك هاي أفر يتمكي فبرايو كل يتغال بغل إيو سغاشنك وحنا هالكان كدو ليا قبايو إليه هاي بيريد شعفصنا مثلا قبايو اللي قولي سري إيه قلب كاها دintayna kuwiga 980 gabayada oo ah kuwiisii hore oo sii horeeyay oo ku silin bilowga qarnigan kuwa ayaanu ka bilaabi doonaa jaaliga waxaan u hormarinayaa gabayga la yidhaahdo Tallaalay ama dhaxtaalkiisu yahay Tallaalay ma reer Afgaab tulid soo dhaafo bilowgii qarnigan markii Soomaaliya loo kala tartamayay ayaa Ingiriisku isku dayay Afrikadii bari ee uu haystay inuu ku darsado dalka Waamo iyo Jubbaland loo yaqaan ama dalka la yidhaahdo Ultra Jubbaland xagga ka ah ciidamo taageera oo qortay ayuu qabaa'ilka waqooyiga Soomaaliya gaar ahaan Isaaqa kasoo ka haystay halkaas uu markaa la haystay iyo markii horeysay kolkii dambana wuxuu ku guuleystay inuu Sariilay qabsado oo xarun ka dhigto jilbadeed 1912 ayaa Ingiriiska dagaal lagu qaaday malqaalada dagaalkaas iyo fulintiisana waxaa iska lahaa nimanka cawliyahan la yidhaahdo iyo Cabdiraxmaan Mursal ama Xaaji Cabdiraxmaan Mursal oo duqa u ahaa Sariilay talimihii Ingiriiska ahaa ee joogay waa la dilay wixii daarta u yimid oo xub iyo cunto u badnaana waa laga meersaday magaaladiina cawliyahan baa qabsaday Ingiriiskii intuu ciidamadii soo kordhiyey kana faa'iidaystay colaadda Mareexaanka iyo cawliyahanka kolkaa dhexdiina ayuu Mareexaanka garabsaday oo intuu hub u qaybiyey dagaal geliyey guuleed wuxuu ku jiray ciidankii Soomaaliyeed ee Ingiriiska la socday sanadkii 1915 ayaa cawliyahan laga soo dhacay geelal fara badan sida qolada iyaga ka midka ah ee reer Afgaab la yidhaahdo Soomaaliya geelaas soo dhacday Mareexaan baa u badnaa inkastoo ay askar Isaaqina ku jireen geeliyaa guuleed madax looga dhigay dabadeedna intuu saamiga ku dhuftay Ingiriiskii waan ogey ayuu tolkiis sidii baqaarsiiyey Ingiriiskii ayaa taa loo sheegay oo lagu yiri guuleed baa geelii qaybiyey maalintaa baa jeelka la dhigay isagoon waxna meel dhigan geeliina wax ka fogeysan markuu jeelka ka soo baxay ayuu gabaygan tiriyey nin ay ilmaadeer ahaayeen oo la odhan jiray oo Axmed Diin Sheero isaguna laftiisu gabay ahaa ayaa markuu soo baxay yiri guuleedow kolley jeelka intaad ku jirtay wax tirisay maxaad tirisay isagoo reer Afgaab guuleed oo calacalaya Ingiriiskana ka digaya kana ceel qaba hiilkii uu siiyey iyo taraxumadii raacsiisay marka hore ayuu yiri Axmedow dastuur iyo xarabo tuulay waayaha ee garkii iyo lowyihiiba isu tegey taawo iyo ciile tuurtaan fadhiistaba dhulkaan taraf ka jeexaaya toogada aan leeyahayna waa tu aadan moodayne tubta maalintaan maray ma jirin mini tallaabaaye anigiyo tolkayga arlada laga tilmaamayna hafallaan u tegey geel intaan taagadiis qabaye taftaf orodka waataan ilmaha tiriyey goortii iyo tuub iyo nin fulayaan aqoon toogashiyo aare gabagabada teedka ciyoon torog la meegaariyo toba wiilashii maali jiray tuuro maradii iyo taarteeda nimankii lahaa soo tawaawaca ee Faransiisku sida toon dabgalay tuugay qiiq weyn ee tunka laga wareen maalintaa nimankii taagnaaye tuugaysigoodii harkii tuugay Sariilay meeshii saami la tuuran jiray tuugtan baan galaya turgi iyo Ibliis bay iga dhacay tobiyo heenaale ragaan tala lahayn waa sidii tugaya naagood ee tifna kuma filooy
هذا الحدان لا يستعجلين أن يتلا لا ما غير أفقار تلد صداف تلتلانكو كما ويرى أنتو أنت يعب ليه أسكتي تقولها حمي تضمن مع شيني تلا لا ما غير أفقار تلد صداف تبتن من أقوم يا حبين تعالي الله حرايه haddaan aadan kala toosinayn tahan marka horeene tulaala ayay maareer afgaar tulid u soo dhaafo indoorba tuuraha horweyn kuma tigaadheene tuurkama dhigteen caanihii tiica iyo laane tulaala ayay maareer afgaar tulid u soo dhaafo toogida malay loo tabcaday kurus ma taabteene galaas laguma tuujeen hashii gaawo loo tolae tulaala ayay maareer afgaar tulid u soo dhaafo waa tacab khasaar doogadaan tegayay goob soowe xasan fool xunteedaya sidii dumar ma tiirsheene tulaala ayay maareer afgaar tulid u soo dhaafo ingiriisku soomaali waa kala timlaayaaye aftirsiina way isugu tagnaa timihii daaroode tagtuu maanta falay saa dambuurtaawinahayaaye nin tawxiid gafaayaa u kaca turumbadiisiiye xabaas iguma tuureen haddaan taaganahay meele tugtu eebow caawaba eshaha waa tukanayaa eebu halkaa ayuu uga calaacday reer afgaab ingiriisna uu ka digay nin la odhan jiray cabdidakhtar oo ka tirsanaa askartii ingiriiska isaaqna ahaa ayaa ka xumaaday meelis gabaygii guuleed ku jiray oo ahaa askartii tawoodaha xumay uga mamaasheene markaas buu guuleed u tiriyey dhowr tixood oo yaryar oo uu kaga aadsanayo waxaa ka mid ahaa labada meelis oo ay tahay in werintooda laga xishoodo ha yeeshee ay ammaanada suugaaneed nagu qasbayso wuxuu yidhi wasnay naadihiinnii markaad geela wadateene ku waraaqnay qooraha sidii waalidii qabay wuxuu leeyahay mareexaanow intaad geela reer afgaab dhacayseen ayaanu annaguna dumarkii sidii niman qaba uga damboganay mar kale intuu guuleed maansadiisii liiday ayuu afakay kale ku yidhi intaad reer afgaab oo calaacalaysid ha garan waayin waxaad samayso maalinta aan geela reer siyaad waa tifada guuleede aan soo dhaco afakaydaasina waxay ahayd waa taakaleel maansaduu tiriyey guuleede tobanqaadka nimankaa sita baa taabay dumigiiye intaad nimanka tuurtaa fadhiya tulid u soo dhaafi tallaabo xun hadhigin reer siyaad yaan ka soo turiyey wuxuu ku darayaa la yidhaahdaa wax magoodun tari iyo ninkii toogasho xumaaye